حتى قفسي غرغورنا حتى غرغوردا وسعتها إلى أنا نحرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قارقة سو دواده بيجكي وكسو دواده هداد ku cusub tahay subscribe sar hadaad ila joogtana aad u maasan tahay marka waxaan ku dhihi lahaa dad siyaasadeynaya arkay Powerlight mandate mar aan TikTok u dhaxalay Powerlight oo Mandera Powerlight aan ka hadlayay oo dad badan ay hata TikTok dad badan ku soo xir ma sha Allah ugu soo biiray codkaas cod dheer u noqday oo Powerlight aan uga hadlayo Powerlight maadaama aan ka hadlayo dad siyaasad MCA u taagan dad badan ay la hadlay oo dhahay idahaya kaya hadii aan waxay leeyim garnay doorashadii waxay isku xireen macnaha Powerlight iyo doorashadii isku xireen ka muuqata meesha wuxuu ku dhaca qof siyaasi ah oo siyaasadda u taagan oo inuu siyaasadda doorasho gala rabo wuxuu ku leeyahay ka soo qaad uu korka ficilay inaad may dooranaysaa aniga taamkan MCA taagan magaalada Mandera u taaganahay MCA doorasho sanad 2027 doorasho u taaganahay ay dooranaysaa أنا حنايا doorasho u taagan tahay kadib maxaan ugu sheeganaysaa inaan ku dhahaa inaad idhaahid doorasho u taaganahay kadib li doortaan raba waxaan in soo deynaa koronto hadaa istaghfar laha waxaan garnay hadaa dooratid waxaan in soo deynaa waxaan in soo deynaa koronto in soo deynaa hadaa dooratid adiga iyo asxaabtaada iyo dad macnaa isku xiran oo aniga ay dooratid korontada ay soo deynaa ay dooranaysiin waxaan dhaanaysan oo fiiri korontada waxaan dhahay waa meel ganacsi ah anagana bilaashna walma basiyaba tan oo horeys horta doorasho inta ku soo lalamin ka hor doorasho qof galaayo oo koronto ku kaambeyn gareynaayo aan waxaan dhahay kaas wax qabad uma lahan wax qabad bulshadaas uma lahan dhihi karaa had fikirkay markaas qofkaas waa la yaabay noocaas amal inuu igula hadlo aniga waxaan dhahay maxaa qaldan qofka aanay doorasho dhan u taagan yahay Powerlight macnaas wax isku soo laabay amal waxyaabo kale moo ii sheegta oo waxyaabo badan ku qaban kara oo dhihi kara jire sababtu kugu dhaay maxay campaign aan ku jiray doorto sanadkan 2027 doorto 2027 doorto campaign aan ku jiray waxaan aniga Mandera township iyo Mandera dhulka dhan aniga macnaha koronto dhan insiina koronto la ma noqonaysiin waxaan dhigaysa korontada horta Powerlight ma laha istaghfar la Powerlight ma laha korontada adig ma lihid Powerlight meesha ganacsi bay u joogtaa ganacsi ma fahantaa adeer meesha waa meel ganacsi ah hadeer taano soo deyso hadeer taano soo deyn laakiin adiga ina campaign garisid koronto uu qof leeyahay hool uu ganacsi uu qof leeyahay ku campaign garisid waxay la fiican maahan waxa uu fiisama waxba uu yiri ifiyata ya waa iskaaga tagay marka dad noocaas aba jir ka waran dad noocaas inay koronto ku campaign gareeyaan bay barabaanba korontada aan ku sheegay shirkada iska leh baraaday shirkad ayaa iska leh oo shaqadeedu tahay inay shaqaysato haday shaqaysan weyso ayda ka go'on tahay qof lacag ay rabaan Kenya Powerlight without money shacabku waxba uma qabtaan without money shacabku waxba uma qabtaan shacabka reer Mandera marka ay soo haray hadii lagu dhihi lahay qof intuu ka hor imaado ku dhaxmay dooranaysaa ee korontada 24 hours sanadkan damba 2027 wixii ka dambeeyay 24 hours ana koronto idin soo deynayo oo idin sameeynayo mi dooranaysaa hadii lagu dhihi lahay fikirkaad muxuu ahaan lahay hoos comment ka soo reeb marka kanka hadda waxaan soo noqday kan doorashada u taagan waxyaabo badan isku campaign gareyn kartaa jirta magaalada waxyaabo badan oo laga qabanaa jirta waxyaabo fara badan jira oo la qabanin ku campaign gareey laakiin koronto shirkada iska leh shirkadaas ay dan ugu jirtaa inay noo sii deyso iyo inay naga xirto
أنا العقد باستعمالينا العقد تاس أنكو استعمالين أنا كسودي سنينا سيكوت haddii idil waaysanka sidii soonka hore oo kale ma badhaceyso soonka hore wallahi waa la dhibanay dadku way ku rafaadeen Mandera waa ku dhibtoodeen waxa ku dhacay waxa ka yeeri waa la ogaay marka tookadan ma ka dhaceyso xasayd waxay u dhaceenin waa la sii diyaar garooba waxay noqonaysaa in dadka sii diyaar garoobaan soonka intaan la gaarin oo la hubay Kenya Power in ay si sax u shaqeynayso inay si soonka horniyeeli rabto waa inay bulshada Mandera ay ogaadaan bulshada Mandera waa inay ogaadaan inay si sax u shaqeyn rabto inay u shaqeyn rabin ya sifaan ugu digtoonaana Kenya Power sifaan ugu digtoonaana oo u sii diyaar garoowna waa inay ogaadaan shacabka reer Mandera ilaa shacabka waa ku ugu horeeyay ee dhibka gaaray anigii adigi wixii dhan oo Mandera ku nool haddii korontada si sanadkii had soonkan soo dhaafayeen oo kale laga dhigo adii inta Mandera ku dhan dhibaatadaas oo wada saameynay wayna saameynay marka waxaan ku dhihi lahay qof kasto Mandera ku nool ka qayliya hadda korontada biriyan way roon tahay laakiin sidii soonka hore oo kale intaysan nagu dhici lahayd aan ka sii digtoonaan reer Mandera hadda tihiin korontada aan ka digtoona aan qabno aan sii diyaar garowna haddii laga tagayo xataa soola iyo waxa aad iska raadsan oo sii diyaarina ilaa wax ganacsi anytime iska xirmi kartaa oo iska aamusnaanka iska ciyaar karanba anytime maybe dadka iskaga ciyaar karan hoos lacag lagu shubtaa lacagtaasna uma jeedaan dad lacag ka dhargiyo eegyihiin marka waxaan leenahay dadka Kenya reer Mandera inay isku dubnaadaan isku xirnaadaan ay ogaadaan soonkan soo socdo ay hubiyaan meesha madax looma baana inay madax la warsado looma baana waxa loo baahan yahay shirkadda ma shaqeynaysa ama ma xiraysa ama soo shaqeynaysa in la dhaho macnaha meeshan waa meel ganacsi lacag aad bixisay reer Mandera hadda tiin mani aad bixisay lacag aad bixisay koronto wax bilaash ku sii malaha ma fahanteen korontadu wax bilaash ku sii malaha haddii korontada aad iska dhaaftid waa iska dhaaftay haddii aad ogolaato isticmaalkeeda lacagta aad baxsatid waad baxsatay laakiin maadaama ay sidaas tahay waxaan rabnaa inaan hubino in ay shaqeynayso 24 hours in kala waa inaan isku hubinaa page haduu kugu cusub yahay subscribe soo saar haddaad ila joogtin waa kaaga mahadcelinayaa aad ma sintiin dhammaan dadka Soomaaliyeed aad ma sintiin